munaasabadan lagu maamuusayay xuska kowda Luulyo 55 guuradii ka soo wareegtay markii ay gobolada koonfureed xornimada ka qaateen gumaysigii Talyaaniga iyo Israaciil labada gobol ee waqooyi iyo koonfur ayaa waxa lagu qabtay magaalada London ee wadanka Ingiriiska. munaasabadan oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxa ka soo qayb galay siyaasiyiin, fanaaniin, odayaal iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. dadkii munaasabadaasi isugu yimid ayaa iyagu si aad ah uga hadlay qiimaha ay ummadda Soomaaliyeed u leedahay maalintan oo kale. waa hameen aad noogu weyn, waa hameen maxaan ku raayay ay naga reebantahay siyaasaddu, waa hameen ay naga reebantahay jacaylaysigu, waa hameen farxadna leh naxadinna leh. aniga cabdi ahaan hameenka caawa maxaan ku radaa kowda Luulyo oo midowgii labadii gobol ee maxaan waqooyi iyo koonfur iyo xornimadii gobolada koonfureed iyo 26 Juun oo afar habeen kala horeeyay waxaad moodaa in Soomaali si dhumayso taariikhdeeni iyo sharaftaan u lahayn. waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan habeen wanaagsan, habeen xorriyadda, habeen sharafta, habeen magaceenu sare u kacay, habeen ummadda Soomaaliyeed taariikhdeeda iyo halgankeeda iyo ummadeeda ay horseeday. waxaan aad u jecelnahay ummadda Soomaaliyeed Ilaahay mideeyo inay isku soo dhawaadaan, in mataqaan sharafteena soo noqoto, in mataqaan qarankii oo si daciifayo soo noolaado, maxaa la dhahaa qabiilkuna baaboo Soomaali baa leh midnimo u rajaynaynaa. taariikhdu marka in la xuso oo maalinta la xuso macnaheedu waxa waaye in la xasuusto dadkii halgankaas u soo dhintay ama soo aasaasay ama u dagaalamay, in laga dhex muujiyo bulshada nolosheeda mustaqbalka oo taariikh socota oo taxana ay noqoto. haddii alla yiraahdana ramadaantan inaan ilaahay u barino wadankeena inuu ku soo noqdo nabadgelyo iyo sidii khayraadkiisa iyo ummadiisa ee qaaradaha adduunka dhan u kala rufsay inay isu timaado oo anagoo midaysan inaanu ku dabaaldegno haddii alla yiraahdo wadankii Soomaaliya inuu ilaahay noo garto bishan bil Ramadaan weey waa inaanu ducaysanaa. calankan rag baa u soo dhintay u dhintay haweenka kamida Soomaaliya sideedana nolosheeda marma wada abuurmin maalmo maheerayso gaaraysi. Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay rag u istaago oo u guntado dhalinyaro ah oo xoog leh oo wax bartay oo maskaxdooda furfuran tahay. ma sax baan ku nahay sida aan ku socono hadeer marka la fiiriyo waqtiga aan gobonimada qaadanay oo 55 sano ay ka soo wareegtay, fikirka aan fikirayno sida aan u fikirayno maanta 55 sano kadib qaabka aan u dhaqmayno ma sax baan nahay mase in wax laga bedelay u baahan tahay. waa iga su'aal. anigu haddii aan ku hormaro jawaabta aniga la isa siiyo wax badan in la bedelaa loo baahan yahay qabaa. calan yahow buluuga ah kaan caadka lahaynow weligay caashaqsanaayow col baa kuu nool cudud baa kuu laaban haddaad ciirimaad ka yaabtay weli cirkaad saaran tahay. walaasheen Xamiida iyo tiimkeeda oo runtii haddii aanay gacanna siinin oo arrintani ay qayb libaax ka qaadan ay munaasabadatan runtii caawa halkan aan u fadhino kowda Luulyo ayna qabsoomi lahayn runtii. Garabay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed London.